munaasabada ciidul adxaha ayaa si weyn looga ciiday wadanka Finland iyadoo meel kamida lagu tukanayeen aanu ka qayb galnay ayaa dadweynaha islaamka ee wadankan degan iskugu soo baxeen garoomada iyo hoolasha waaweyn si ay u weyneeyaan farxadda ciidul adxaha bulshada weynta Soomaaliyeed ee wadankan degan oo qaar kamida aan la kulanayna waxay hawada u marinayaan eheladoodii iyo asxaabtoodii salaamaha ciida الرحمن الرحيم anigoo ah Hodan Maxamed Dalmar halkan waxaan ka salaamayaa muslimiinta dhamaantood gaar ahaan aabahay walaaladay dhamaantood waan salaamayaa ciid mubaarak saaxiibada ayaan Cabdilaahi iyo saygeeda Maxamed Xuseen iyo Fadxa iyo odaygeeda iyo dhammaan muslimiinta oo dhan baan salaamayaa ciid mubaarak anigoo ah Jaamac Maxamed Maxamuud waxaan salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland barakaatu dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland meel ay joogtaba qurba joog haday tahay iyo wixii dalka joogaba talabaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland halka waxaan ka salaamayaa ummadda islaamka dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa hooyaday macaan oo joogta Burco waxaan salaamayaa asxaabtayda oo dhan iyo family-gayga iyo dadka oo dhan warahmatullahi wabarakatuh magacayga waxa la yiraahdaa Roob Cabdi Maxamed waxaan deganaa wadanka la Finland dhammaan Soomaalida ku nool adduunyada dhan waxaan u rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer ciidda kale waxaan rajaynayaa in farxad iyo nabad ku waarto أنا وحاء إكرام محمد وحا السلام يا أيها الصومالي شوكتا يا ذا يا شوكتا إنجليزكا يا دمانت وكوا صومالي شوكا مركا أيها يا أولويات magacaygu waa Cabdi Axmed Daahir waxaan joogaa wadanka Finland gaar ahaan caasimadda Helsinki waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam wa antum bixeer waxaa kaloo mar aan khadka telefoonka kula xiriiray si weyn looga ciiday magaalooyinka Turku Vaasa Tampere Kotka Joensuu Fanta Espoo iyo Oulu Aadan Yuusuf Cismaan Hoon Cable TV Finland